بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد maanta إن شاء الله تعالى waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii ahaa alajruumiya waxaana insha allahu tacaala u akhri doonaa si basic ah oo loogu talagalay ardada bilowga ah ee ku cusub naxwaha barashadeeda. dadka in fara badan oo ka mid ah waxay iska dhaadhiciyeen amba loo sheegay oo u soo hormartay naxwuhu inuu yahay wax aad u dhib badan, laakiin insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa qof allaalaya qofkii dhegeysta amba fiirsada oo muuqaalkani gaaro in naxwaha insha allahu tacaala si dhib yar oo u fahmi doono haddii ilaahay yidhahdo subxaana wa tacaala. naxwuhu waxaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala kitaabka la yidhaahdo alajruumiya. baabka koobaad ee ah baabulkalaami ayaan insha allahu tacaala ka bilaabaynaa. baabulkalaami waxaa looga hadlayaa saddex mas'alo. mas'alada koobaad waxaa la yidhaahdaa kalaam maxaa la yidhaahdaa. mas'alada labaad kalaamka meeqa u qaybsamaa. mas'alada saddexaad qaybaha kalaamka uu leeyahay mid kasta oo ka mid a maxaa lagu garanayaa. saddexdaa mas'alo ayaa baabka looga hadlaya. kalaam maxaa la yidhaahdaa, kalaam meeqa u qaybsamaa, qaybaha kalaamka uu leeyahay mid kasta oo ka mid ah maxaa lagu garanayaa. su-aasha koowaad oo ah kalaam maxaa la yidhaahdaa, jawaabdeedu waa kalaam waxaa la yidhaahdaa allafdu almurakabu almufiidu bilwadc. kalaam waxaa la yidhaahdaa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci. afar shay wixii laga helo ayaa kalaam la yidhaahdaa. afartaas shay, kan koobaad lafdinimo, kan labaad murakabnimo, kan saddexaad mufiidnimo, kan afaraad wadci oo loola jeedo qasdi amba carabi loola jeedo. afartaas shay wixii laga helo ayaa waxaa la yidhahdaa kalaam. hal shay haddii laga waayo kalaam ma aha. soo duubo, kalaam maxaa la yidhaahdaa, su-aashii ahaaday kalaam waxaa la yidhaahdaa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci. lafdi maxaa la yidhaahdaa, lafdigu waa dhawaaq afka ka soo baxay oo xuruuf la qori kara leh. lafdigu waa dhawaaq afka soo baxay oo xuruuf la qori kara leh. murakabna waa laba shay iyo wixii ka badan wixii isaga yimaada ayaa waxaa la yidhaahdaa murakab. kalaamka meesha ugu yar oo isaga imaanayo waa laba erey ama laba kelimadood wey. labadaa kelimadood wixii ka yar kalaam ma ah. laba kelimad baa ugu yar iyo wixii ka badan ayaa kalaam la yidhaahdaa. kalaamku waa inuu ahaadaa mufiid oo kalaamku kalaam wax faa'iideynaayo oo mufiida waa inuu ahaadaa. hadduusan ahayn kalaamku mid wax faa'iideynayo kalaam ma ah. kalaamku waa inuu ahaadaa wadci. wadcigu waa carabi inuu ahaado wey. haddii la yidhahdo wadcigu waa carabi, waxaan carabi ahayn oo dhan kalaam ma aha. macno kale ayuu leeyahay wadcigo, kalaamku waa inuu ahaadaa qasdi, waxaan qasdi ahayn markaana oo ulakac iyo ulajeedo loo dhihin kalaam ma aha. maanta waxaan qaadanay su-aashii koowaad oo ah kalaam maxaa la yidhaahdaa. kalaam waxaa la yidhaahdaa afar shay wixii laga helo: lafdinimo, murakabnimo, mufiidnimo iyo wadci. kalaamku waa inuu ahaadaa lafdi, murakab, mufiid iyo wadci inuu ahaado wey. haddii lagu yidhahdo kalaam maxaa la yidhaahdaa, maxaan dhahaynaa kalaam waxaa la yidhaahdaa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci. intaa inoo joogo insha allahu tacala wallahu aclam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.